Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan wanaagsan saaxiibada sharafka iyo maamuuska badan oo saaxiibkan Ismaaciil Diiriye. Waxaan dib u ilaahsan doonaa barnaamijkeeni Revit Architecture. Maantana waxaan qaadan doonaa curtain wall. Curtain wall haddaan maqashisiisaba waa wall family. Curtain wall-ka waa dahar saaran guriga banaankiisa, ma leh awood dheeri ah oo dhaafsan midda uu isku haysto nafsad ahaantiisa. Waa muraayad loo adeegsado keliya inay celiso cimilada sida roobabka iyo dabaysha. Wuxuu ka samaysan yahay material aad u jilicsan, taasoo ah muraayad iyo bir aad u jilicsan oo loo yaqaano aluminium. Faa'iidada ugu weyn waa inuu soo gudbiyaa iftiin kaasoo ka imaanaya banaanka guriga. Marka curtain wall-ka sidiisaba waa wall family. Wall-ka markaa ku dhufato oo halkaa jag siiso, qaybtaas hoose ayuu ku jiraa curtain wall-ka, waana saddexdan qaybood. Waa midkaan loo yaqaano curtain wall, exterior glazing iyo storefront. Marka waa tijaabin doonaa. Dhismahan idin muuqda arkaysaan wax weyn maahan, waa wall roof iyo wuxuu ka kooban yahay floorka sirkaa hoose ee daaqadaha. Intoodaba horaan usoo sameynay. Haddaad nagu cusub tahay cashiradii hore usoo daawo si aad nooga daba imaato oo aad noola socoto. Okay, kusoo dhawaada cashirka. Level 1kaas nage maxaan niri curtain wall-iska sidoodaba waa wall family. waxaan noo soo qaadaa kaas ugu hooseeya, saddexdan xabo wey. waxaan noo soo qaadaa kaas ugu hooseeya oo storefront-iga la yiraahdo. Markaa sidaa u dhigto soo dhawe, waxaa arkaysaa markii loo soo dhawaado dash maraya center line-ka iyo both end-iga labada dhinac maraya. Kaas waa bir aan ku sheegayo jilicsan oo aluminium-ka. Gudahan waxaa maraya muraayadii curtain-ka ahaa. Marka aad taabato taabkii oo aad u dhawaato, waxaa arkaysaa si gooni ah inuu hal xabo taabanayo. Haddaad taabkii taaban, asagoo dhan ayaa isla wada highlight gareysmaya. Laakiin haddaad taabkii taabato, midkaa rabto si gooni ah ayaa u highlight gareynaysaa. saas markaa ugu dhawaatid taabkii taabo. Markaas inta ugu soo dhawaato aad taabkiga la taabato, waxaa ku highlight gareysmaya hal qayb oo ka mid ah. waxaa saaran waa mid pinned ah oo xiran. Calaamadaas waa pin. saa u qaado waa ku kordhufanaysaa, unpin ayuu noqonayaa. sidiisa ku celi waa pin. haddaad taabkiga sii taabato, waxaa taabanaysaa curtain panel-ka gudaha ku jira ayaa taabanaysaa. Okay, markaad 3D-ga taabato, curtain wall-ka 3D markaad dhahdo sidaan buu ekaanayaa. Marka haddii aad taabato, asoo dhan baa highlight kuu saarmaya. korkaas markuu highlight kuu saarmo, halkaan sida wall-kii caadiga ah oo kale loo xukumayaa. halkaan haddaad tagto level-ku ka bilaabanayo, halkaan gee level 2 tagdhe. macnaha sidii wall-kii caadiga ah u shaqeynaya. haddaa halkaan cabirkii aad kuu saaran haddaad bedesho oo aad ka dhigto 7 mitir, waa soo yaraanaya. sida wall-ka caadiga ah u shaqeynaya. sababta loo yiri waa wall family. sababta lagu leeyahay wall-ka ayuu ku shaqeeyahay, wax yar uga duwan yahay kaliya. Okay, si aad u highlight gareyso qayb ka mid ah, markaasaas u highlight gareyso asaga nafsad ahaantiisa highlight gareysan. laakiin haddii aad wax yar u soo dhawaato adigoo taabanaya calaamadda taabkiga, haddaad hal mar taabato, waxaa ku highlight gareysmaya
curtain wall mulionka u lahaa mulionkiisa highlight ku saarmaayo. haddii aad laba jeer taabka taabato taab curtain panelka ayaa highlight ku saarmaya. waa isla muraayadii gudahaas ku jirtay. sidoo kale haddii aad inta soo dhaweysato kuna dhawaato oo 3 jeer aad taabkiga taabato linekaas gudaha ku jira oo aan halkan ku muuqanayn 3D-ga ayaa highlight ku saarmaya. sidoo kale marka inta highlight saarto wuxuu leeyahay edit type meel aad ka bedeli karto isaga nafsad ahaantiisa. haddaa ku dhufato marka koowaad waxa ku soo baxaya sidan vertical grid ayaa ku soo baxa. vertical grid-kan kuwa taagtaagan weeye iyo horizontal grid ayuu leeyahay. vertical grid-kiisa layout-kiisa wuxuu leeyahay qaybahan maximum spacing, inaad maximum space ku xisaabsido, inaad fixed distance ku xirto, inaad sidoo kale number aad u sheegto oo numberska panels marka 4 number iga dhigtira 4 panel ku sameeyna. sidoo kale hoos wuxuu ku leeyahay vertical mulionka iyo horizontal mulionka. mulionka waa aluminium kan line kan taagan ayuu mulionka u yaqaanaa. interior vertical mulionka kuwa verticalka ah mid qaybtan dhexe waaye. wuxuu leeyahay border type 1 one type iyo 2 type of border. waa corner kan iyo corner kan. sidoo kale horizontal kan wuxuu leeyahay border asagana 1 iyo border 2 ah iyo xabadkaas linekaas dhexe. xabadnadan ama yaraadaan u yaqaano internal ayuu leeyahay. halkan marka imaato sidoo kale waxa laga bedelaa curtain wall curtain panelka. hadda waa glazed waaye. solid ka dhigi kartaa. arki doonaa soo laga dhigayo MPT waxyaabana la isticmaalayo. okay si caadi ah ayaan u geli doonaa markaan ma naga tiri kartaa ku kor dhufo daleedriya guriga ayaan gelinayna. qaybtan side-kaas aan isticmaalayna. daaqadan naga tir. judhiga markaa tagto saan ayuu kugu muuqanayaa. wall aad leedahay. wall markaad tiraahdo waxaad tegaysaa store front noo soo qaad. halkaa uga bilow derbiga caadiga ah ku samaysanaa ayaa la dhex geliyaa. saas ayuu noqonayaa. okay waa kana aan bal istaajino 3D. waa si derbiga oo kale aa ku dhufanaysaa oo xadidaysaa kadib abto level 1 ilaa level 2 geeyaa leedahay. okay elevationka haddaan tagtid oo saa ugu kor dhufato caadi ayaa edit profile u dhigi kartaa. profile ku bedeli kartaa. profile-ka markaa ku dhufato edit profile borderkaas guudka ayaa ku samaysmaya. kadib ayaa waxaa dhigi kartaa big line offset si halkan kaasa haysataa. kadib waxaa isku dhigi kartaa zoom extend. kadib okay soo ma jeed marka
qaab ahaan direct line u bedelnay. waxaad dareemayaa markaan waxaa sameynaysaa hadduu ilaahay yiraahdo qaybtan ayaa mulionka waxaa ku bedeli kartaa sidoo kale keligaa leedahay. kadib waxaa leedahay edit maximum spacingkaas uu ku yahay ayaa waxaa ka dhigi kartaa 0.6 ka dhigi kartaa. verticalkiisana waxaa ka dhigi kartaa 2 meter. apply okay you see and then waxaa sameyn kartaa haddaad doonto midaad tiri kartaa mulionka kamid ah. waxaad sameynaysaa mulionkaas korkiisa markaad saarto oo aad keli tiraahdo waxaad dhigi kartaa ambin. kadib waxaad dhigi kartaa calaamada delete leedahay. waxaa kuu soo haray linekii hoose isagana saasaa ugu dhufanaysaa. waxaad dhigi kartaa remove ambin aad leedahay pinka ka qaadaysaa kood hore then waxaad dhigaysaa remove next segment aad korsiinaysaa delete waa baxa isagana. sidoo kale facekaas dhexe ee aad u jeedo ee aan furnay ayaa waxaa awoodaa in aad geliso iridaa geli kartaa. isagana irid waxaa u gelinaysaa saasaa u saaraysaa kaasarkaaga saaraysaa taabkiiga taabanaysaa. panelka markuu ku calaamaysmaa keliga leedahay panelka ampin ayaa ka dhigaysaa then door iridaa soo gelinaysaa. irid kuguma jiro waxaa leedahay iridka markaa soo gelinaysa doorkaasaa gelinaysaa dooraa ku dhufanaysaa load family. waxaad tegaysaa dooriska markaad tagto curtain wall double storefrontigan markaasuna soo geli doubleka okay ayaa leedahay. dhowr ahaan haddaan usoo qaadano curtain wallka oo uu naga diiday sida ujeedaan sidii hadeetii oo kale. marka waxaa sameynaysaa hadduu sidaas oo kale kaaga diido ama element oo dhan uu kaa diido waxa laga soo geliyaa insert laga soo geliyaa. insert ayaa leedahay load family dooriska ku furan curtain wallkaagan dooro open dheh waa ku soo gala markaas. okay ku dul qabo taabkiga taabo ku dhufo then waa kaa ku soo galay door curtain wall double glass. iridkii sidaas ayuu kuugu galay 3D-ga nooge. هذا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.